halkan waa xafiiska degan ee dalxiiska ee Buuja. shaqadeenna waxay tahay 24 saac idinka amnigiina inaan ka shaqeyno maalin aan hal mid ma ku weydiin karaa horta dhimashada ma ka baqda adiga kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walba oo aad dunida ka joogtaan kuway habeen u tahay habeen wanaagsan ayaan leenahay kuway maalin u tahayna waxaan leenahay maalin wanaagsan marba low haddii uu soo noqdo waxa uu la soo noqdaa barnaamij cusub barnaamijkan waa barnaamij aynu kaga hadlayno filinka saadegto aad wada sugayseen oo aynu rabno barnaamij aad u qurux badan inaynu ka samayno haddaba filinkan waxaa hogaamiyaalka kale ahaa Sanjay Dutt oo aad wada taqaanaan oo ashilaacan muddo badan kusoo jiray fanka dhanka Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya sidoo kale Aditya Roy Kapoor iyo waxaa ku jirtay Alia Bhatt iyo walaasheed Pusha Bhatt inkastoo filinka ay lahaayeen Ray Bhatt oo ahaa filin iyaga production-kooda uu soo saaray haddaba filinkan Saadegto maxay tahay sababta aynu rabno inaynu kaga hadalno barnaamijkan laga diyaariyay Saadegto waxaa keenay oo sabab u noqday inuu noqdo filinka ugu dislike badnaa amaba diidmada oo suulka la saaray dadku ay markaasi diidaan markii trailerkiisa uu soo baxay in ugu yaraan 12 milyan oo qof oo dalkaasi India dadka u dhashay ayaa filinkan diiday iyaga oo markaasi u sababeynayay hanaanka iyo qaabka filinkan loo jilay waxayna markaasi sheegeen oo ay ku eedeynayeen filinkan inuusan ahayn filin wanaagsan intii aan la saarin tiyaatarada dalkaasi India oo aan la sii daynin oo hawada gelin koor ayay diidmo koor keeneen haddaba diidmadaasi maxaa sababay in shacabka reer India ee 12 milyan gaariya maxay tahay sababta ay dislike u saareen filinkan Saadegto barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan ha yeeshee bal marka hore muuqaalkan aynu isla daawano iyo waxa markaasi laga sheekeynayo filinka markii aad daawato Saadegto adiga markii dagaal waxa ku jirtay faaliyaasha haddana waxaad bilowday ninkan waalan inaad garab siiso ilaa hadda aniga sheekada aad ma aanan fahmin waan ku wareeray daawadayaasheena qiimaha badan si aad arkayseen waxaad arkayseen Aditya Roy Kapoor oo Alia Bhatt la hadlay isagoo markaas u sheegaya waxa uu hadafkayga ahaa buu yiri inaynu la dagaalano dadka faallooyaasha haddana waxaad bilowday buu yiri inaad nin waalan inoo keento ujeedkaaga iyo hadafkaaga wuxuu yahay toona ma aanan garan haddaba filinka hadalhaynta ugu weyn waxay tahay waxa lagaga sheekeynayay dadyow fara badan oo malaayiin kor u dhaafay ayaa waxa ay dalkaasi intii aaminsan yihiin waxyaabaha loo yaqaan bogwaanka iyo faalfaalka taasina marka la fiiriyo wax wanaagsan ma ahan arintaasi darteed maadaama shacab fara badani ay yaqaanaan quraafaadka filinkan saameyn ayuu ku yeelanaya waxayna shacabkaasi u arkayeen in iyaga lagu dhaleeceynayo wixii ay aaminsanayeen wax laga sheegay Alia Bhatt aabaheed waxa uu markaasi filinka doorka ku lahaa inuu yahay nin dadka faalka iyo waxyaabaha sameeya la shaqaysta ugu dambeyn ay kula taliyeen in naagtiisa uu dilo si uu horumar iyo awood u yeesho taasina ay ku qasabtay inuu xaaskiisa dilo oo ahayd Alia Bhatt hooyadeed kadibna uu guursado iyada habareerteed oo lafteed qorshaha wax ka ogeyd oo markaasi aaminsaneed faallooga waxa uu sheegay inay wax wanaagsan ahaayeen markii ay aragtay gabadh yareed inay ka tagtay oo habareerteed hooyadeedna la dilay ugu dambeyn dib u soo rujuucday dareentana waxa ay markaasi sameynayeen inay wax qaldan haddaba maadaama shacabka reer India ay u arkeen intooda badan in dadka faalka iyo waxyaabaha noocaas asnaamta caabudo lagu dhaleeceynayo diidmo ayay keeneen haddaba filinkan marka dhinacyo badan laga eego saameyn kuma yeelanayo caalamul islaam sababtoo ah waxaan waa wax quraafaada oo ay awalba iyaga aaminsanaayeen wayna fiican tahay dadka noocan oo kale oo caabudo waxyaabahan asnaamta iyo aaminsan faallooyaasha in runta loo sheego Alia Bhatt waxay markaasi u dagaalamaysay oo u doodaysay oo ay rabtay in dunida laga sifeeyo dadka faallooyaasha dalka India jooga dantana waxay biday inaysan deedood inta u tagto ay garab weydiisato Alia Bhatt tan waa isdili tagtagoo dheh بوليس لو وعوة فريقة إن الله قال ما هي هل كان تجنده بوليس سوي عربك قال يا أخي ورصعون كل صعون بلاي وين بدنا نصعون ورا ذيك قال بوليس معه عيسى مركو هرديك بحر الجوجنا ورقبضنا وإزديلة بوليس كنا معه dhalinyaro fara badan oo kamid ah dhalinyarada ku xiran aflaanta ayaa waxay aaminsanayeen in filinka Saadegto markaasi uu ahaa filin flooba oo la diiday dislike badan la saaray haddaba sababta loo diiday wax kala ma sanayn filinka hanaankiisa iyo qaabka loo jiliyo sheekadiisa hanaanka isugu xirneed intaba waxay ahaayeen kuwa aad u quruxsan kaliya waxa shacabka reer India ay ku diideen oo dislike ay u saareen ayaa waxa ahayd in hawlahoodii iyo quraafaadkoodii laga soo faragashtay markaasina la dhaleeceynayay oo la diidanaa dadkana la fahansiinayay in dadkan ay yihiin dad tuuga ah oo raba dadka hantidooda in ay markaasi ka dhacaan sida filinka baa ku daawanayseen Alia Bhatt hooyadeed ayay ku weyday faallooyaashaas iyo quraafaadka ay akhrinayaan halka Aditya Roy Kapoorna uu sheegay in awowihii nin faalloow inta u yimid
uu khuraafaad u akhriyay deetana hantidii uu lahaa uu ka qaatay markii uu hantida gacanta ku dhigana uu dibadda aaday sidaasina ay kusoo istaageen reer faqri aan waxba aan haysan way dhacdaa khuraafaadka noocaas oo kale India kama jiro dunidoo dhan ayuu ka jiraa waddankeena Soomaaliya xitaa waa uu ka jiraa dad yow aaminsan dadka noocaas oo kale oo khuraafaadka akhriya oo yiraahdo hebel baan u tagay hebel ayaa waxyaabo noocaas ay soo sheegtay haddaba filinkan qis ahaantiisu ma xuma in wax dhaleeceynaya saameyn kuma yeelanaya caalamul islaam iyo diinta islaamka kaliya khuraafaadka iyaga ay wateen ayaa markaasi la soo galay oo loo sheegay waxaan ay ku guda jiraan oo ay aaminsan yihiin inaysan ahayn wax wanaagsan runtana ay tahay in ninkaasi uusan dadka waxba dheereen balse ujeedkiisa hadafkiisa uu yahay in danihiisa uu markaasi ka fushado hadday noqoto xitaa qof in la dilo uu amar ku siinayo oo ay qaadanayaan walow dhanka kale markaad filinka ka eegto in ay ku jiraan in markay noqoto sanjeedid oo markaasi xaaskiisa oo waa hore geeriyootay kuna geeriyootay filinka Saadiq qaybtiisa koowaad oo la jiray sanadku markuu ahaa 1991dii taasi waa waxaana suurtagalayn in qof dhintay in uu qofkii uu ka tagay oo dunida joogo uu markaasi la hadlo oo wax uu sheego haddaba daawadayaasheena waxaynu ka jaahil bixinaynaa in dislike-tan aysan macno weyn keenayn oo aysan filinka markaasi hoos u dhigi karin way dhici kartaa dad yow badan inuu filinka saameyn ku yeesho markii dhinacyo badan laga eego qof walba dantiisa ayuu ka eega haddii uu ka arki waayana suulka ayuu saaraa oo uu yiraahdaa filinkan filin jira maahan muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in runta loo sheego shacabka reer India aaminsan faallooyaasha iyo khuraafaadka haddaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan bartanka waxaynu kaga jirnaa barnaamijka aynu kaga hadlaynay Saadiqto iyo sababta keentay in dhowr iyo 10 milyan oo qof trailerka filinkaasi ama boorsameetadiisii inay dislike saaraan dhinacayga waxaa fadhiya Cabdullaahi Axmuumin low is back ay kusoo dhawaad adigana barnaamijka aad baan ugu dhowahay waana salaamaya asxaabteeda ku xiran low is back waxaan idin leeyahay low wuu soo laabtay caaqil cabdi faarax aad buu u mahadsan yahay caaqil cabdi faarax barnaamijkan isaga ayaan u xil saaray sababtoo ah wuxuu ka mid yahay dadyooga u kurbagala aflaanta hindiga bollywoodka talaaguuga iyo kanadagaba sababtoo mar hore wuxuu ka shaqayn jiray janaal aad hore u wada taqaanaan lagu magacaabo saxafi janaal wuxuuna soo tabin jiray aktarada iyo taariikhdooda maantana si wacan ayuu barnaamijkan u tawiyey waan ku faraxsanahay mideeda kale dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaan arkaya ayagoo isla dhexmaraya filimka Saadiqto wuxuu noqday dislike film jira ma aha filimku waa film jira taariikhdiisuna ay wanaagsan tahay micnaha laakiin ayaga ay ka dhaadhacsan tahay sababta dislike keenay dislike idinka waxaa laga yaabaa inaadan fahmi karin dislike dadkan diin ahaan ay u markay arkeen filimka in looga hadlayo diimahooda laguna daleeceynayo micnaha faallooyaashooda waxay go'aansadeen filimka inay dislike saaraan laakiin filimaanta kale markii lagu aflagaadeynayo diinta islaamka la leeyahay waa argagixiso waa isqarxiyaan filimaantaasoo kale laaga ayay u badiyaan annaga waxaa laga yaabaa filimaanta noocan oo kale ah markaad aragtaan dhalinyarta Soomaaliyeed inaad dhahdaan filimkaas waa dislike wax jira ma aha laakiin filimaanta diinteena lagu aflagaadeynayo kale markaad aragto inaad iska daawato aad shub ka dhahdo waxaa loo baahan yahay si ayaga diintooda u difaacdeen oo kale annagana diinteena inaan u difaacno filimaanta alqaacidada diinteena lagu aflagaadenayo sumcadeena lagu dilayo markaan aragno inaan dislike u badino laakiin dhalinyarteena taas waa ay ka jiifaan filimka muhiimadiisa ma fiirsadaan waxa macquul ah waxyaabo qaar inay ka arkaan kadibna ay iska qancaan ma loo baahna annaga filimaanta aan soo turjumayno waa filimaan aan ka fiirsanay sal iyo raad filimka waxa uu ku saabsan yahay filimaanta qaar markuu diinta micnaha alqaacida iyo waxa uu ku saabsan yahay barnaamijyada ay ka hadlaan moogi anaga waan u bedelnaa sababtoo ah waxaan ugu xiran kumanaan Soomaaliyeed dal iyo dibad kala jooga qaar dibadda jooga ciyaal far badan haysta ciyaalkoodan af Soomaaliga hadda baranaya haddii aan alqaacida iyo balaayo maskaxda ugu shubno diinteena ayay nacayaan taasna looma baahna marka dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa markay arkaan filimaan alqaacida ama diinta muslimiinta lagu aflagaadenayo kale inay filimaantaas oo kale dislike u badiyaan si maanta ayaga diintooda u difaacdeen oo kale annagana waxaana looga baahan yahay diinteena inaan u difaacno baada igu xiran waxaan ka raali gelinayaa baryahan oo aan muuqaal soo dhigin sababtoo ah shaqadii oo zaid igu badneed anigoo baryahan iska xanuunsanaa laakiin low is back dib ayuu u soo laabtay muuqaalo cusubna wuu la soo laabtay waxaan kaloo ka raaligelinayaa barnaamijyadii aan soo dhigay haddana qadka aan ka saaray barnaamijyadaas waxay ahaayeen barnaamijyo micnaha aanan fiicnaan sababtoo ah barnaamijka habkii aan rabay micnaha maamulka ay rabeen inaan u diyaariyo aniga uma aanan diyaarin saa daraadeeda marka booska hadda micnaha wuxuu dhahay aniga muuqaal wanaagsan oo aad kaga hadli karto barnaamijkaas ku diyaarinayo aniga hadda codkiyan u duubay muuqaalka asigaa saaray barnaamijyadaasna kulley waa idin soo socdaan idinkana marka waxaan idinka rabaa inaad i dhiirigelisaan low soo laabtay low hadduu soo laabtay waad ogtihiin waxyaabaha uu la soo laabtay horey garab ayaad isiin jirteen maantana waxaan idinkaga baahanahay garabkii shaloo kale inaad isiisaan iyo midka sii weyn baryahan viewska hoose usii dhacayaa ma aqaan asxaabta meelay ku kala maqan yihiin waxaan rabaa asxaabta inay dib usoo laabtaan
aniga waan soo laabtay idinkana waxaan idinka rabaa inaad soo laabataan oo kaalintiina aad qaadataan muuqaalkan hadduu ku cajibay waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto waxaa macquul ah dhowr mar inaad youtube-keyga soo booqatay muuqaalana aad ka daawato subscribe-na aad ii saarin maanta maxaa diida inaad subscribe ii saarto waxaa laga yaabaa muuqaalka ku anfaco beri inaan soo daayo marka si xushmad leh waxaan kaaga codsanayaa subscribe-ka in aadan iga baqilin sababtoo ah dhiirigelin ayuu ii yahay qofkii aniga subscribe isiiya waxaan ogaanayaa inuu yahay qof aniga xushmeena iguna xiran sugayana muuqaaladeeda anigana markaas waxaan kusii dhiirinaan doonaa muuqaaladeeda in aan badiyo in aan tayadooda micnaha aan sii ziyaadiyo waxyaabaha idinka aad iga codsataana aan soo daayo mar walba aniga muuqaalka aan samaynayo wuxuu ku xiran yahay commentiyadiina waxaad igu soo gudbisaan ayaan barnaamij ka sameeyaa marka barnaamijkan kiisa kale inta aan ku kulmi doono waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa walaalkeena caaqil cabdi faarax oo si wanaagsan barnaamijka qayb igala qaatay iyo anigoo ah cabdulaahi axmed muumin low isback inta barnaamijka mid lamid aan kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subscribe-ta hala hilmaamin yaa